assalaamu calaykum. U diyaargarowga imtixaanada waa xilli xasaasi ah oo u baahan qorshe taxaddar leh iyo xeelado si aad u xaqiijiso guushaada. Inkastoo ay jiraan talooyin iyo farsamooyin badan marka ay imaado imtixaan diyaarinta, waxaa sidoo kale muhiim ah inaad ogaato caadooyinka iyo dhaqamada ay tahay inaad ka fogaato. Waa kuwaan 7 shay ay tahay inaadan weligaa samaynin imtixaanada ka hor. Muuqaalkan laagsaar si uu u gaaro dad badan, asxaabtaada imtixaanka ku jirtana u sheergaree. Mahadsanid. Ku soo dhawaada mar kale mawduuca. 1. Waa inaad ka fogaataa karaamin waa diyaarinta casharada oo idil habeenka ka horeeya imtixaanka. Waa xeelad caadi ah oo ay sameeyaan ardayda laakiin aan waxtar lahayn. Diyaarinta casharada oo dhan habeenka ka horeeya imtixaanka waxay inta badan keentaa fahan yari iyo haynta xogta oo liidata. Taa beddelkeeda dooro spaced repetition, ku celcelinta bannaan oo ah farsamo ku lug leh dib u eegista casharada marar badan oo kala fog. Habkani wuxuu kor u qaadayaa xusuustaada iyo fahamkaaga muddada dheer, taas oo ka dhigaysa hab aad waxtar u leh. 2. Waa inaad ka fogaataa isticmaalka baraha bulshada. Isku day inaad iska ilaaliso isticmaalka baraha bulshada inta lagu jiro imtixaanaadka, sababtoo ah waxay kaa qaadanaysaa waqti badan iyo diiraddaada. Tani waa sababta ugu weyn ee jiilka maanta diiradda aysan u saari karin waxbarashadooda iyo shaqooyinkooda. Ardaydu ma dhammaystiri karaan hal jabtar iyaga oo aan eegin social mediaha, Facebook, TikTok iyo Instagram. Waa waxyaabaha ay tahay inaad ka fogaato xilliyada imtixaanaadka. 3. Hurdayarida xilliyada imtixaanka. Inaadan si fiican u hurdin xilliyada imtixaanka iyo habeenka ka horeeya imtixaanka si aad wax badan u diyaariso waa wax aan faa'iido lahayn. Hurdadu waxay lama huraan u tahay shaqada maskaxdaada, xoojinta xusuustaada iyo guud ahaan caafimaadkaaga jirka. Hurdo la'aantu waxay wax u dhimi kartaa awooddaada inaad si qoto dheer ah u fakarto, xoogga saarto iyo dib u soo xasuusashada casharada inta lagu jiro imtixaanka. Ujeeddadu waa inaad hurdaa ugu yaraan 7 ilaa 8 saacadood oo hurdo tayo leh. 4. Dib u dhigiddu waa mid ka mid ah qaladaadka ugu waaweyn ee ardaydu samayso iyo cadowga koowaad ee imtixaan diyaarinta. Dib u dhigista aqrinta casharada ilaa daqiiqada ugu dambaysa waxay kuu horseedi kartaa walbahaarkaaga oo ziyaada iyo fahan la'aanta casharada. Iska ilaali inaad dib u dhigto diyaarinta imtixaanka. Samayso jadwal waxbarasho oo kuu deggan. U kala qaybi diyaarinta maadooyinka qaybo la maareyn karo oo waxyar ka qabo maalin kasta si aad u dhisto kalsoonidaada. 5. Jooji isbarbardhigga naftaada dadka kale. Iska ilaali inay saameyn kugu yeeshaan jadwalka asxaabtaada oo aad barbardhigto diyaargarowgaaga iyaga, sababtoo ah qof walba qaabkiisa waxbarasho wuu ka duwan yahay midba midka kale. Marka raac habkaaga waxbarasho. Tusaale ahaan, aynu soo qaadano, haddii saaxiibka uu kuu sheegay inuu aqriyey 6 jabtar oo adiguna aad dhammaysay oo keliya 2 jabtar, waqtigaas waxaad si toos ah u dareemi doontaa niyad jab oo aad bilaabi doontaa inaad ku degdegto jabtar kasta. Haddii saaxiibka uu aqriyey wax ka yar intaad aqrisay, waxaad hoos u dhigi doontaa diyaargarowgaaga oo waxaad dareemi doontaa nasasho. 6. Isticmaalka xad-dhaafka ah ee kafayga iyo cabitaanada tamarta. Iyadoo laga yaabo inay noqoto mid soo jiidasho leh inaad ku tiirsanaato kafayga ama cabitaanka tamarta si aad u soo jeedo oo aad u foojignaato, isticmaalka xad-dhaafka ah ee maadooyinkan waxay kugu yeelan karaan saameyn xun. Isticmaalka xad-dhaafka ah wuxuu kuu horseedi karaa walaac badan iyo hurdo la'aan. Haddii aad u baahan tahay inaad hesho energy iyo soo jeed, qaadashada kafayga dhexdhexaadka ah ayaa fiican, laakiin ha ka badin. Sidoo kale, iska ilaali inaad tijaabiso waxyaabo cusub imtixaanka ka hor, maadaama aanad garanayn sida jirkaagu uu uga falcelin doono. 7. Go'doominta naftaada. Inaad u diyaariso imtixaanka si gooni ah waxay mararka qaarkood ku keentaa dareen kelinimo iyo walbahaarkaaga oo ziyaada. Iska ilaali inaad gebi ahaanba ka go'do dhexgalka bulshada. Inkastoo ay muhiim tahay inaad yarayso mashquulkaaga, balse iska hubi inaad waqtigaaga qaadato oo aad nasato, sida inaad la xiriirto asxaabta ama qoyskaaga. Taageerada bulshada waxay ku siin kartaa dhiirigelin, waxayna kaa caawin kartaa dhimashada walaacaaga. Intaan ayuu ku egyahay muuqaalka. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.